inaan digniin u mariyo ummadda Soomaaliyeed inay ku halligmin inay aadaan meelahaas inay ku halligmin maxaa yeelay wixii khasaare soo gaaray hadhow naf iyo maal meel aan waxba jirin ninkii inta looga yeero aada bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah waxaan galabta oo isniina waqtigan aan hadda joogno isku nimi halka shirka jaraa'id inaanu warbixin kooban idinka siino howlgallo ay xalay iyo saaka iyo maanta gelinkii hore laga fuliyey agagaarka inta u dhaxaysa shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe halkaasoo sida mujtamaca ku nool magaalada muqdisho ay ka warhayaan ay nimankan khawaarijiintu maalin walba ugu yeeraan oo yidhaahaan maxkamad baanu saaraynaa maxkamad baa lagaaga yeeray maxkamad baa ku doonaysa iyagoo u yeerta muxuu ahaa mujtamaca kala duwan waxay u yeertaan kuwa notaayada qora waxay u yeertaan ardada waxay u yeertaan dalladda tacliinta waxay u yeertaan baabuureyda waxay u yeertaan ganacsatada waxay u yeertaan culimada iyagoo yidhaaha maxkamad baa halka lagu hayaa cadaalada noo imaada sidaa ka warqabtaan cadaalad haddii ay ka hadlayaan cadaaladdu waatay hadda ka fulinayaan iyadoo wakhtigan abaaraha ah lagu jiro oo dalku uu la tacaalayo iyo dowladdu ay la tacaalayso in muxuu ahaa abaarahan dadka sida loo samata bixin lahaa waxa ay ka sameeyeen galguduud iyo muxuu ahaa hiiraan waxa ay ka sameeyeen taasaa iyagu cadaalad ay u yaqaanaan sidaa awgeed waxaanu saaka howlgal ka samaynay 6dii aroornimo dhulka u dhaxeeya Basra iyo beerta Cali Mahdi oo meesha ay dadka ugu yeertaan waanu ka warqabno muddana aanu ka warhaynay ee ahayd cutubyo ka tirsan ciidamada amniga oo isugu jira ciidanka daraawiishta booliiska ciidanka gaarka u tababareen Haramcad Duufaan iyo ciidamo kale oo iyagana ka tirsanaa SNA muxuu ahaa howlgalkaas oo lagu soo guulaystay laguna soo baabi'iyey ayna ka kala carareen saaka subaxii hore ilaa 6 saac alaabtooday kala qaateen kala carareen aan dib dambe iyo meelay kala aadeen aan lahaynin meeshu waa kayn wixii qaadan kareen waa qaateen wixii ka dhiman kareen waa ka dhinteen annaka waxaan soo gaaray hal sarkaal oo xidigla oo dhaawac fudud gaaray iyo hal askari oo naga dhintay howlgalkani wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyey oo aanu fulino ma aha mid joogsanaya howlgalladu waa soconayaan waa isdaba joogaan kani waa kii horreeyey laba arrimoodba marka waa raba inaan u sheego mid waxa weeye siyaasadda dowladda waxaa ka go'an in nimankaa la iska celiyo oo lala diriro maxaa yeelay wax dambe oo loo hagranayaana ma jirto waad ka warhaysaan dadka hiiraan maanta waxa ay siday uga gilgisheen iyo siday isu abaabulayaan dhuusamareeb iyo cadaada agteeda meesha ahayd iyaduna sidaasoo kale dadku iyagaa maanta go'aansaday maantana waxaa la qabtay shir weyn oo ummadda Soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa xamar degan oo uu ka soo qayb galay prime ministerka wasiirada ururada bulshada iyo gudoomiyaha gobolka loogu talagalay in dadkan la iska qabto wax kale oo yaalla oo Soomaali u dhiman malaha in la iska celiyo oo guriga ku jiraan iyo meeshay ku gabadaan iyo meeshay istaagaanba la soo sheego ama laga warhayo si collective ama wadajir ah loola dagaalamo sidaa ka warqabtaan waxaan rabaa inaan digniin u mariyo ummadda Soomaaliyeed inay ku halligmin inay aadaan meelahaas inay ku halligmin maxaa yeelay wixii khasaare soo gaaray hadhow naf iyo maal meel aan waxba jirin ninkii inta looga yeero aada intuu aadaya waxa loo qaatay isagoo u soo sheegay ciidamada amniga
oo yidhaaha halkaas aniga layga yeeray saasaa jirta ninkaasay soo wacay taleefonkaana laygu soo wacay kadibna ciidamada amnigu ay amnigiisa ilaaliyaan ma aha in la aado ninkii aada oo aanu ku ogaanno kuwa badanna hadda waanu ka warqabnaa ninkii baabuurka ijaaro dadka qaadow iyo kuwa u yimaado dadka u yeerow kulli waxaanu ognahay dad badan oo ku lug leh iyaga dagaalamayo iyo dadkaas u adeegaya waa isku mid ummadda Soomaaliyeed agteeda maanta xaaladda Soomaaliya ay marayso ee dalkoodii gudahoodii iyo muxuu ahaa abaarihii jiray colaad dadka ugu daraya qof kasta oo ka qayb qaata marka waxaan uga degaynaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan dawlad goboleedyada jooga kulli qolo walba oo Soomaali ah waxay go'aan ku gaadhay meeshay degan yihiin iyo aagooda inay iska celiyaan in la isla celin karo 15 wiil oo meel soo istaagay oo waraaqa dadka u keena oo yiraaha muxuu ahaa cadaalad baanu ku qaadaynaa cadaalad haddaad weydo annaka noo imow haddaad noo imaan weydina waa ku dilaynaa marka waa garan kartaan nin la yiri waa ku dilayaa cadaaladna waa ku qaadayaa inay meel wada galaynin waa idin muuqataa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba inay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay gacan siiyaan ciidamada amniga wiilashaani guryaheennay joogaan xaafadaheennay joogaan waa dariskeen xaasaskeenna saaxiibadood baa dhalay agteennay degan yihiin si wada jir ah ummadda Soomaaliyeed maanta waa go'aansatay dawladduna go'aan waxay ku gaadhay inay iyadu hormuud u noqoto khudbadaha maanta waxaad ka dhagaysan doontaan idaacadaha uu ka jeediyay muxuu ahaa prime ministerka dalku si ay dawladda uga go'an tahay in lala dagaalamo nimankaas waxaan aad u ammaanayaa ciidamada amniga howlgalkaa sameeyey howlgallada soo socdana samayn doona awalna ku dhex jiray waxaan aad u maqlaa anigu taliya ciidanka booliiska askari baa sidaa yeelay hal askari oo wax xaaladiisa ilaahay og yahay oo wax yar ama waddo kaa celiyey in ciidamada lagu ijaafeeyo iyagoo habeen iyo maalin u soo jeeda amnigaaga waxay ila tahay inay sax ahayn ciidamadu waa dad badan oo habeen iyo maalin soo jeeda oo amnigiina ka shaqaynaya marka in gacan la siiyo wixii xun iyaga loo soo sheego iyaga idinka qabanaya saasaan muxuu ahaa shacabka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka oo dhan iyo dawlad goboleedyada iyo ciidamada jooga oo dhan isku dhafka ah in lala diriro nimankaasi ay dawladda uga go'an tahay inay idinka go'naato dad badan baa laga soo badbaadiyo ka soo kala cararay qaarna waxay raaceen iyagay la carareen qaarna waxay la soo carareen xagga ciidamada u soo carareen waxa noo qorshaysan howlgalkani waa kii koowaad inaanu meesha ku noqonayno iyo inaanu meelo kale tagi doonno waa qorshe annaka noo degsan laakiin waxaan uun kuu sheegayaa qorshahani waa siduu u bilowday waa sababta aan u leeyahay qofowna ha aadin meesha haddaad adigoo meesha u sii socdo dhib kula kulmo ama ka soo socdo dhib kula kulmo ama aanuba ogaanno inaad meelaha tagtaan maxaa yeelay nin saaciday baa tahay ama aanu ogaanno hadhowtu wixii kaaga yimaado yani mas-uuliyaddaada marka shacabkeenna waa u turaynaa waxaanu rabnaa inay nala ogaadaan waxa soconaya iyo waxa meesha jira in annaguna la socodsiino